بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساكا وصبتي سقالي توكي بشي نوفمبر labada kun iyo 22 waxa hoolka shirarka xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ka furmay shirkii gudida fulinta ee xisbiga kulmiye shirkaasi oo gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi una wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici hoggaanka iyo fulinta xisbiga kulankan saaka fulintu ay ku yeeshaan xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye waxa warbixin lagaga dhageystay waftigii uu horkacayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane Axmed Cabdi Dheere waftigaasi oo iskugu jiray xubno ka tirsan hoggaanka iyo fulinta xisbiga warbixintii ay gobolada iyo degmooyinka dalka ka soo diyaariyeen ayaa halkan runtii lagu wadaagay waxa sidoo kale ka soo baxay qodobada ay ka mid yihiin koow xisbiga kulmiye waxa uu hadalkii ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ah ku tilmaamay mid qayrul dastuuri ah oo qaran jabin ku ah qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida awgeedna aanay qaranka ku lahayn xuquuq sharci qodobka labaad xisbiga kulmiye waxa uu ku amaanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo xeerarka ka dhambalma waxaana madaxweynaha ahna gudoomiyaha xisbiga ay u soo jeediyeen in uu dulqaad muujiyo sidii uu awalba ku sifaysnaa hase yeeshee in aan dulqaadkiisa aanu noqonin mid dhibaato u geysanaya shuruucda dalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.